xogayaha dowladda hoose magaalada Berbera Cali Maxamed Cilmi ayaa maanta kormeer ku soo maray isla markaasina soo indhayay xaafadaha iyo meelaha ay fadhiyaan biyihii ay ka tageen roobkii laxaadka lahaa ee dhawaan ka daay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. xogayaha dowladda hoose magaalada Berbera Cali Maxamed Cilmi ayaa waxa uu sheegay in Berbera ay ka mid tahay magaalooyinka roobka u nugul isla markaasina marka ay roob laxaad ay helaan ay biyaha badda iyo kuwa cirku ay isku soo dhawaadaan taasina ay keentay inay waliba meelo ka mid ah magaalada ay biyuhu fadhiyaan. xogayaha dowladda hoose magaalada Berbera waxa uu sheegay in haatan ay ku tala jiraan sidii meelaha ay biyuhu fadhiisteen biyaha looga sii deyn lahaa isla markaasina loo sameyn lahaa diilmijo iyo saaqiyado waaweyn oo biyaha ku dara badda kuwaasi oo kuwa ugu waaweynna laga sameynayo xaafadda dhinaca waqooyi ee magaalada kuwaasoo loogu talagalay inay badda kaga daraan meesha loo yaqaano xabaalaha saadada. xogayaha dowladda hoose magaalada Berbera waxa kale oo uu sheegay inay u qorshaysan tahay inay magaalada ay ka fuliyaan mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo adeegyada kala duwan ee bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, leerka iyo wadooyinka kuwaasi oo intooda badan la fulin doono buu yiri ama qorshahoodu ku wajahan yahay sanadka ay nagu soo socdo. waxa weeyaan biyaha iyo waxa isqaynaa biyaha cirka soo dhacay kuwa dhulka meelahan waxa ka mid yihiin meelaha biyo mareenka wadada imka taagan ee wadada maru ka soo baxaysay ee halka badda kaga dareysay xabaalaha saadis oo meelahan ugu talagalay inay biyuhu ay ka baxaan oo aan ka saarno magaalada inta badan gudaheeda may fariisanino walaamiyadii laga sameeyay drainage-yadii ayaa ka saaray qaybta ay biyuhu istaageen waxa weeyaan qaybta xuruunka ee Bergedwe Safeega aanu ka saarnay iyo qaybta Batalaale ee xagga Seylada xigta iyo halkan aanu taagano Dirir Hotel ama wadadii number 1 halka ay ku soo baxdo waanu doonayno inaanu ka sameeyno gacana bad ku dara. dowladda hoose magaalada Berbera ayaa sanadkan dabayaaqada waxa ay magaalada ka fulisay mashaariic kala duwan oo isugu jira wadooyin dhismayaal iyo waliba mashaariic kale wax ku oor oo ka mid yahay garoonka weyn ee kubadda cagta ee haatan Berbera caanka ku noqotay. Cabdi Salaan